السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu dul joognaa caawa oo aanu soo booqanay buurtii quraanka ku soo degay taasoo la yiraahdo Qaarul Xira. hadda saa u jeedaan waxaanu saaranaa buurta dusheedii halkaasna waa xaramkii oo Kacbada ay ku taalay oo halka nooga muuqda. insha Allah biidnillaahi taala barnaamijkii waxyiga iyo soo degay oo dhameystiran insha Allah ayaan idin faahfaahin doonaa la socosho wacan insha Allah. إن شاء الله بإذن الله تعالى قارو الحرة وحلو مرة لوقا كان لوق آدو عريريا مركز صباح إن شاء الله بإذن الله وأوجد بيننا وحنا سكدينا هنا إن شاء الله أي نمرنا مركز تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى نمرنا أي سكدينا طبعا ولي واسيس عنا ولي ماشي وقرآن كسر دقي ولي ما إننا قارن صوصعه صوصعه walaalayaal meeshaan hadda aan ku suganahay ama godkaan hadda u jeedaan waa god waxa weeye magaciisa la yiraahdo Qaarul Xira ayaa la yiraahdaa. rasuulku sallallahu alayhi wa sallam intuu san nabi noqon ka hor ayuu meeshatan iska iimaan jiray isagoo ka fakaraya ilaahay samadan iyo dhulkaan khalqay iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala sida uu koonkaan u khalqay isagoo ka fakarsan habeenada kamid ah oo ay tahay bil Ramadaan ayaa waxa uu yimi halakan isagoo jooga طبعا nabigu markuu halkan iimaan jiray muddo ayuu iskaga dhex jiray dhowr maalmood ayuu iska joogi jiray raashinkiisa iyo sharaabkiisana hore ay u soo qaadan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo halkan iska joogo oo iska cibaadeysanaya ayaa waxa uu yimi malaku jibriil ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u soo diray markaas jibriil waxa uu ku yiri nabiga sallallahu wa sallam alayhi markuu u yimi ayuu wuxuu jibriil nabiga ku yiri iqra ayuu ku yiri markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri أخي بكوير والالكيو ما أنا بقارئ يا أخي بكوير وحنا ما أخري وحنا ما قرأ مركز كوير مرلبات أيوه كوير اقرأ وأخرنا ساي أخري أيوه كوير مركز كوير ما أنا بقارئ يا أخي مركز كوير هذانا اقرأ وأخرنا ساي أخري مركز أيوه وحوي وأخري جبريل وكوير واحد هذا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أيوكو رسولك صلى الله عليه وسلم مركز رسولك كدب يري أو حفظي marka ay arintaas dhamaatay kadib ayuu nabigu soo baqsan oo argagaxsan oo gariiraya ayuu buurata ka degay kadibna waxa uu tagay xaaskiisa Khadiija ayuu u tagay ilaahay raaliha ka noqday isagoo wuxuu leeyahay idaboola isagoo leh oo baqsan ayuu gurigiisa tagay markaasay Khadiija ilaahay raaliha ka noqday nabiga ay dajisay oo tartiib ula hadashay oo waxa weeye markii ay baqdintu ka baaday kadib xoogaa degayna waxa ay ku tiri ii waran maxaad soo aragtay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay wuxuu la soo kulmay iyo wixii uu arkay iyo wixii uu maqlay ayuu Khadiija u sheegay markaas Khadiija ilaahay raaliha ka noqday waxa ay ku tiri walaalkayna adeerkayow waxaan kugu bishaareynayaa oo ilaahay kaaga rajeenayaa inaad noqonaysid nabigii ummadda tan inaad noqonaysid ayaan waxa weeye ayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga rajeenayaa waa calaamado cadeynaya inaad nabi ummadda tan u noqonaysid qof aqli badan oo raaliya oo naxariis badan oo markastaba xikmad leh ayay Khadiija ilaahay ha ka raali noqday sidaas ayaana ilaahay subhanahu wa ta'ala oo quraanka ku soo dejiyay maantana adduunka oo dhan waxa weeye quraankaas aynu wada haysano meesh uu ka bilowday oo waxa uu ku soo degay waa halakan ama waa Qaarul Xira oo meeshan hadda aan ku suganahay marka Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa idin ka codsan in aan la dayicin rasuulku markuu quraan ku soo degay dabcan 40 jir ayuu rasuulku sallallahu wa sallam alayhi إن شاء الله بإذن الله تعالى إلهي وحن أقبرينا قف كست أو مسلنا أو كتابك إلهي حفظية أو قرآنك إلهي حفظية إنه إلهي أقدق قرآنك كيو شفع قادلها إنه إلهي سبحانه وتعالى أقدق لها قرآنك كيو وحوي جنة أقد بلها ودرجة أقصرية وكفول لها أيان الله أقرجيني سبحانه وتعالى قف كست أو فيديو كان ولا ليس كلا أسي شرقرية أو مسلمين تجارسية أو تصمي شيء وحي وكسر دقينا إلهي وحن أقبريا سبحانه وتعالى إنه حافظ القرآن كدقه وإلهي أجري حسنات وكسيه
khayrka iyo dacwada fidinteeda ayaan Allah subxaanahu wa ta'ala uga rajeynaya dhammaantiina waxaan idinka codsanayaa inaad quraanka ilaahay dayicin oo quraanka ilaahay la akhriyo oo maalin ilaahay keeno la isku dayo inaad xataa waxa weeye dhowr aayadood aad kalaamka ilaahay walaalayaal ka akhridaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajar iyo xasanad alla soo koobi karin ha idinka siiyo inta ay daawanayseen fiidiyogaana u sii shargar walaalaha kale oo muslimiinta ilaahayna inagii kulligeenba haynoo ka dhigo sadaqa jaariya cid kasta oo qisadan waxyiga waxa weeye barnaamijkeena kan ku daawata waxaana weeye khayr baa idin rajeynayaa sidaas iyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.